sanad walba maanta oo kale ayaa laga xusaa guud ahaan gayiga Soomaaliyeed 15 May oo ku beegan maalinkii la aasaasay ururkii gobonimo doonka ahaa ee SYL kuwaas oo ka koobnaa 13 dhalinyaro ah oo ku bahoobay la dagaalankii gumeystii reer Yurub ee dalkani ku soo duulay waxa ay ku midoobeen in qalin dalka looga xereeyo shisheeyihii gumeysiga ku haystay dalka iyo dadka Soomaaliyeed haddaba munaasabad maalinkani lagu weyneynayay isla markaana lagu muujinayay waxqabadkii dhalinyaradii Soomaaliyeed ee SYL ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo iyadoo ay dhalinyaro badan munaasabadan qiimaha badan ka soo qayb galeen waxa sidoo kale halkaasi laga qaaday heeso dhiirigelin u badnaa oo dhalinyarada lagula hadlayay ugu horeyn qaar ka mid ah dhalinyaradii munaasabada ka soo qayb galay ayaa sheegay in ay maalinkani maalin qaas ah iyaga u tahay waxayna dhalinyarada dhigooda ah kula dardaarmeen in ay dhalinyaradii 13 ahaa ku daydaan oo ay dalka wax wanaagsan u siyaadiyaan dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed qaasatan dhalinyarada reer Jubbaland waxaan ugu hambalyeeynaa maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed inay u dabaaldegaan teeda kaleetood dhalinyarada waxaan leeyahay waxaa mas'uuliyad inaga saaran dhammaanteena haddaan nahay dhalinyaro inaan ka shaqeyno dhisida dawladnimada waxaan naftayda iyo naftiinaba iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ugu hambalyeeynaa maalinta qiimaha leh ee SYL ee 15 May ku aadan ee ah maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee tahay maalinta kaliya sida qaaska u leenahay gudoomiyaha dhalinyarada degmada Kismaayo Abaadir Cabdiraxmaan Beeshi ayaa sheegay in dhalinyarada munaasabadooda maanta loo fadhiyo ay ka fursado yaraayeen kuwa maanta joogo wuxuuna dhalinyarada ku booriyay in ay ku daydaan dhalinyaradii Soomaaliyeed ee SYL maanta waxaan u taaganahay aan sida ognahay waa maalinteeni waa maalintii dhalinyarada Soomaaliyeed ee 15 May waa maalin ugu weyn oo sanad walba xilligan oo kale aan qabanno maanta waxaa hormuud nooga ah wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaan leeyahay mar waliba hambaliyo dhalinyarada Soomaaliyeed meel allaale meesha joogaan qaasatan reer Jubbaland wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubbaland Aways Maxamed Xuseen oo munaasabada soo afmeeray ayaa sheegay in ay ka wasaarad ahaan dhalinyarada reer Jubbaland garab taagan yihiin goor walba si ay uga qayb qaataan dib u dhiska dalka waxaa sharaf iyo maamuus iyo karaamino ah maanta in barnaamijkan weyn oo aan ku weyneynayno maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL aan nagala soo qayb gashaan si guud maalintan waa maalin guud oo la xuso dhalinyarada Soomaaliyeed ee ahaa mujaahidiintii ka diriray ka xanaaqay ama isku dayay inay gumeysiga ka qaadaan Soomaaliya ee SYL sidaas darteed marka maalintan waa maalin guud waa maalinta muhiim u ah marka Soomaaliya dhan dhalinyarada joogto maadaama la dhalinyarada Soomaaliyeed waa 75% in ay si weyn u weynayaan isla markaasna ku daydaan niidin ay ku hayaan ama maanka ku hayaan talaabadii wacneed ee dhalinyaradaas qaadeen sababtoo ah haddii aysan dhalinyaradaas qaadeen kama mid ahaan leen Soomaaliya wadamada ugu horeysay ee iska qaada gumeysiga marka waxaan leenahay dhalinyaradaas waxay naga mud yihiin maalin kasta ee maalmaha soo taariikhda ka mid ah inaan weyneyno laakiin si guud waxa la lahay maadaama de maalmii dhan maalmo laga dhigay hal maalin ha loo qoondeeyo hal maalin hal weynay inta kadib maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed ay dhibaatooyin iyo mushkilo adag ay haysato ee ugu horeyso shaqo la'aanta maanta wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dawladda Jubbaland waxay hal ku dhig ugu dhigtay horumarinta xirfadaha ee dhalinyarada waayadan dambe waxa kaliya isku howlaan in ay bartaan waxyaabaha ama culuumta la xiriirta iskuulada sare iyo jaamacadaha laakiin waxa muhiimka ah waxa waaye si dalkan looga hor sida xildhibaan Shariif uu sheegay si dalkan looga saaro dhibaatooyinka si dalkan looga saaro faqriga si dalkan looga saaro iska hor imaadka si dalkan looga saaro shaqo la'aanta dhalinyarada dhan waa inay bartaan xirfadaha Yaxya Ali Shukri Jubbaland TV magaalada Kismaayo